صح. أنا لما كان بدو ما كنت أرى يا واد السلام يا لماتين نيور تلك عسدان إن اللي يراوها أمريكا كيمي كله يدي همي يقمي بولها مركب ما أنتوا أمريكا قلي إنه كل النلاش قفل بهم بكل إنه وحكي سوق بصدق إنه وحي بلاينه كل قرشيال بولها وضدرنا ومبرهي ما قرأت الدنيا فربنا وحكي بحضي أدو همي جيسي هوشي سوى صاف قاضي ده قدر بس كان نقطي مقدشو يمي markuu dee muqdisho yimi qofka qurbaha ka yimi dee billaha ku soo noolaaday way meesha doonta Afrika ka tago noloshu way kugu adkaanaysaa ma garato dee isbedel weyn baa ku dhacay kulli ninka dee waana nin dhalinyaro iska mustaqbal lahaa dee ninkaasi soo dhaweyntii iyo halkii uu dadkiisa ka filayay inan baa jirta xanuunsanaysa inanta xanuunsanaysa waxa lagu yiri malaajifadiisa fiisa lagu soo saaraya laba soo saaray yar yar oo abgaala baa xanuunsaday oo guuxaya leedaha laba cisho markuu xanuunsanayay dhakhtar baa loo qaaday iminka odayga nabadoon abaabul waxa hiidka soo gaarsiiyay maalin dhowto xuri odayga nabadoon abaabul talyaaniga la geeyay ee qof xanuunsanaya seema fiisa lagu waayay nabadoon abaabul u haystaaba nin baa iminka lahaa maxaa loo xiri waayay baasaboor duulamaasi u haystaa meel kastuu ku maraya everywhere buu ku marayaa nabadoon ان ماشي ضد كليا تاسك مقراسة هل بجروب كليا طير كعير بلال ميوها ومقراسة هاوس تيت كجر تبع كشقيرة نكلا بلال هذا صوب استقري سودان لا بلال بهذا صوب استقري ودن كيغا أنا نظيف سنة يا نكستو قيلي أنا دبيا وحساس وهذا صوب استقري سوق تري عيدا كله شوقة بالواقع بوستي وجود بيوض فريق بلال دباتوين كتير واساس لسكو تعدية نكي هرت سوالد واحد ثاني ولا الكيلي هوج الله بدي دقرعين لو أركز يرسدوا هلا يرت نبرنا كنا ماشي كله قال الله بفوتشي ماشي كله لك الواسلامة وعبد الجاب وحي كلمه ولا راك هترصد نكي الزلدارو قاري إنه الزلدارو عبد الله يقول ما معي تبا يا بين هذا may ninkaan ma ay tamin dhageyso waxaan ku qoslay heesta oo bilaal codka oo isku soo duubo codka Xasan Sheekh Maxamuud waxa la sawiran waa ninkii taliyaha ciidanka booliiska Asad Diyaana la sawiran عبد الله يو دار سك ninka soo qaylina ama naxag xagta waxaan leenahay waxaa taasi sheeg looga ka daranaa hay codkaas hadda عد كده دادي ولي دار موسيقى سيدا hadalkiga waxa bad uma bani wada hadal waddankiga ana kadigana raya naba hadalkiga waa doq ويا عبد الله دم لي هاك انا ضد ناس تموت قال راح دم لي waxaa ku soo gabagabeynaya walaalaha habar gidir ha loo gurmado intaasaa ku soo gabagabeynaya anuu ma garan ninkaa kulley bal ha loo gurmado aad baad ii salaamaya ويا وما صنتها انا هلك ما اقدر صنع المادريا hortii falo garaya kon cusub wataa kon kor la darba gaga timi marka falo taabta taasoo kow noo horta waxaan arkaa nin xiniya loo qabtay hadii dawladda jirto bilaal bulshada soo ma qayliyeen heesa uu soo dhigayo iyo sawirada soo dhigayo nin ku diganayaan arkaa ma garad waxaan wax soo dhigayo waa la arkaa baashuna horta qabiilka marna Soomaali Maxamed wada qabiil 4.5 aynu ku noolahay siyaasiga soo xireeye ama ninka la yiraahdo Ali Mahdi de amar buu ku shaqeeyaa oo da Soomaaliland way leedahay qof waxa weeye qof kale u shaqeeya oo marka waxa weeye adduunka xilka laga qaado xilkiisa ilaashada reer walba horgal baa loo yaqaan anagu horgal baan u naqaan dan dadka artiga marka Ali Mahdi waa nin horgal aan u maleynaya in adeerkii loo adeegsanayo Xasan ninka la yiraahdo Ali Qarax quutana waruntiis dadkaaga in lagu adeegsado maaha meeshana Afghanistan baa la dhahaa xaqada laga hadlo dawlad kama jirto inta u shaqeysana ama u doodana waa in lacag siiso inna waa in baqanaysa dhalinyaradu nin walba qurbaha jooga sidoo doon u hadla u raaxaysta dhalinyarada muqdisho joogta ma wada hadli karaan waxay ku shaqeeyaan waa baqdin iyo lacag ninkan gariiqa la dhaho waxyaabaha uu bayaamiyay uu sheegay waxyaabo waxay ahaayeen qofku uu dawladdiisa ku dhaleeli karo inta in ka badan baa la dhahaa dad ka badan baa dhaha oo aan la xidhin ninkan marka laba mid noqonaysa in la yiraahdo 6 bilood baa lagu xukumaya
oo halkaa waxa weeye tacadi lagu geysto oo waxyaaba badan kaliba laga qabto ilaa meeshan dowlad ma moogta kaliba laga qabto lagu rakaateeyo wax kale loo xidhmaayo hadhow loo hadda hadasho dowlad Soomaaliya way naqaan waxyaaba badan bay ku eedeysan tahay ma aha dowlad caadi ah meeshan dowlad kama jirto marka anigu hal baaq baan u dirayaa waxaan u dirayaa wali beesha Habargidir عشان قبيل ما هي واحد أورنينا قبيل ويه بلال بشابة أنا عديي نين أبقى ولا نراب أنا يعني نينك قيلنا هنا والله حدا حول لي يمركو صدق بوستيه صدق ما هو يسوق صدوده ما شقيه ها سفر وبحر دولده يسجل اللغة كل جسا بلال بشابة وشغال دولده ووقتها مركي اللي هذا يلاس عرض مركي اللي هذا جيبوتي مركي هرشب اللي هذا يميل بالله هذا بلال بشاوي وانك كليه uqaabil san dawladda halka jaamacad Dabarani uu joogo Puntland oo kale ayuu joogo agaasime il maanta la xiro ninkaana waxa ka dambeeyay waa qabiil waxaan leeyahay dhiigu biyo maaha ninkaasi aduu xirnaado 24 hours oo maxkamad la saaro 6 bilood lagu xukumo meeshaas Afghanistan booye reer baa reer waxa weeye meesha madaxa ka haysta reerka madaxa ka haysto hada anagu waan aragnaa warnayo waxaan iyo taabad weeye عشان واحد كاتي قبيلنا كمان مرنا لأن يرد Habargidir إنك كده جماعة لامد وأنا رئيس هيان وإنسان شخصيا نسوا هيان ولا ما أنتوا يكون جفتاني كأن كفرين وحكنا معه قفكست Habargidir إنك والله صعدا منك يسوي درناين دهر على سوها دهر على سو يقري يا ماشي سلام مرين الله وننا سلام مرين مجرى هوية ما أنت نوعرك هذا قال كوضا قال والله شو أنت marka dhalinyarada Habargidirna waxa leeyahay wardhigu biyo dhiig alla inay ka qaadi in adeerkiin u hadlo u hiiliya ninka in adeernimada lagu sheegay maalin u baahan dawladda haday dawladda caadi ah sax oo dhameystiran nabadoon kale xidhi lahayd ninkina waa dhalinyarada waxa la oran karaa waa nin wali daadiisu aqligiisu ma fadhiya la oran karaa waa nin la soo tarxiilay depression baa la oran karaa uu haya odaygan maxaa haya digriiqan intaan marka dawladda caalamka waxay naqaanaa intaan qofka la xidhin in marka hore maskaxdiisa la baaro wala ninkani أرمو ديبريشن هيا أرمو دباتة كلا هيسا لكن أذا وين اللي إحنا نجركه عقل يسمى مسكح السفر ده يا أبجال اللي قيسنا يا إنه بدون كشجرة يا حلو سحلوه يو بوس أو ما أنت معفردي هوتيل فردي ولا هلايس بوقف على دك عالمية محلو حلوه هرنا ماشان دولة كم جرت أفغانستان ما داعي أفغانستان عندي سكارس وبالله توفيق عبد الله هذا مرة عبد الله هذا مرة أي نيو أركو السلام مدير سوق قادنا مسوى واقع لما دقيقة اللي كمان أنا أفرح أركو السلام يا سلطان نيو أرك هذا وحيري داير على السوق ويأتي كده يرسنا يقان وحوي ولا أو تاجري Habargidir nimadiisa meel cad oo kaga soo baxay arko saaxiibo shalay daraad iyo maanta mideed ma aqaane video mar waxa la ii soo diray adigoo dhahaya garyaqaan waxa weeyaan buuq buu abuurtay daahir buuq isagoo ka faa'iideysanaya oo aysan daacad ka ahayn hiiladan Idris Baab buu wacay taleefon la iska wadacay abgaal iyo Habargidir geema la cidheelay odayga xoogaa dhowr libaax baa lagu dhuftay waa uu qadeeyay marka hadalkaaga ma hadduu saxsan yahay oo daahir daacad bay ka tahay Habargidirnimada inuu u hiiliyo mise saaka iyo shalay mideed ma aqaanay baad saxsaneed markaa dheedii garyaqaan buuqiisa laga faa'iideysanaya labadii hadal ba adiga yiri mugta ogaas labada kee saxsan markaa dadka ka qaadanaa waxa weeye kalaamuleel ma yamshi fi nahaar hadda saxanahay hadda waaqic saxda jira angarat hay qaada afraxu ما جبتها ويا محسوب مقيا مرينا طبعا الموضوع اللي قال لي وقريقان دولة حركة سياسية وعرك تهريج أدورته سلامة بالشدة من ماشى صارنا قيارته أدنو سلامة هي وعمد موضوع اللي قال لي ما رضتك إنه وحيالك كلو حلوش ذيك جوحي أو أي مدرسانس كوجا في السنة يدور كونوا قفة تعاونيسا ونور بمشى كهالي يالكذا إذا مهمة إذا أبعكي أنقلها لبضل إنه وجودن بيسوي يدرس كوريسي وهاب قبيلة هانا أيوة مركز Habargidir dhaay war Habargidir wiilka uu kaca ama Habargidir la dardaarmayaan mid ban leh Habargidir dardaaran kama baahna hadaa la dardaarmayso aan leedin abgal iska celiyana abgalna waa Habargidir waa abgal siyaday dib leeyeen dabadu ku dadalaayeen wiilka horsan kaliya wiilka saaqo haba annaga noo kala dhabaaqi turjubanina
waxaa baalkii soo haray garyaqaan xarigiis meesha dowlad baa ka jirta nidaam baa ka jira qof walba oo baalkii haddana lama dhihi karo waxaan maasaga lagu bilaab dowladdu sanadkii ugu dambeeyey oo dhan baraha bulshada iyo kicinta bulshada iyo dhammaan ama haddii bulshadu ay ka maqan tahay weliba ay sheegeen waxaa malaya dad badan hadda meesha saaranba in waaran u go'an yahaba hore ay uga hadleen wacyigelin bay ka sameeyeen afhayeenka booliiska maalin walba uu ka hadlaa qodobka hadda lagu soo eedeeyey waxaan hadda akrinaya beejka macalimaadii wuxuu ku soo eedeeyey baaki saldhigga hodan buu ku xiran yuu yidhi wuxuuna ku eedeysan yahay kacin bulsho maxkamadday u taallaa asaabargidir ahaan wax walba oo dowladda waxqabada hadday kicin bulsho tahay hadday falal argagixisa tahay hadday qalqal abni tahay hadday dhaqan xumo tahay inay wax ka qabato waa soo dhaweynaynaa waana ku taageeraynaa qodobka ah macalimaadii ama baalkii maha salaad ayaga labadii midna gobolkii haysta midna amnigii u sarreeyaaye maxay nimanku qaybta u xireen aad baan weliba u soo dhaweynaynaa howlkarnimadooda iyo daacadnimadooda inay ka turjumaysaa inay kuwa dad u xiga ay ka bilaabaan diminka gowrac weyshaa ku quusatee waanu ku bogaadinaynaa hore u socotaa leenna dowladdu cid walbo kicin amni iyo baalkii farar argagixisa ku shaqa kaba ku tukadaba waa nin waxa islaa waa ninka ugu goobitaanka badanta soomaaliya ama baalkii ugu xag jirsan meeshaan qabiil ma yaallo dowlad baa taalla dowladnimaan ka jirtaa dowladnimadanaana deeqda waanu soo dhaweynaynaa wax walbo haddana maana arag anagu meel ay inta laba nin isku dagaaleen ama isku qabsadeen laba nin oo dhallinyara ama bilbulshaawi iyo garyaqaan midna la xiray midna laga tegey laakiin waxaan aragnay nin dowlad ay soo qabatoo xirtay waarin badan oo horena la siiyey haddana maxkamaddan ka dursugaynaa wixii ka soo baxan oo ku qanacsannahay kuwa dambo ama cid walba waxaan maqlayay nin kale oo yidhi uu raaciyey gabar baa fikir rabtoo leh aniga gabadha ma hayno hadda oo ma raba inaan ku sii faalo laakiin qof walba gacan ku siinay qof qalad ku jira waa ku taageeraynaa dowladda inay baalkii soo qabato waxna ka qabato weliba tallaabo culus ay ka qaado waan idin salaamaa dhammaantiin waaya bismillahi raxmaan kelmadad raxiim aan ku daro anna intayna sida nimcaan labadiina sugin maya brown iyo minaad hadlin bay idinka naga horreysay anii kaas brown laba kelmad aan ku daro inaan horta waxay ila tahay dee dadkan dhallinyarada ah oo meesha ka hadlay I don't know inay khudbadda isku khudbad inaan dhegeysanay khudbaddii gariiqaan uu jeedinayay oo goodiska ahayd oo duurkan galayna ahayd anigu hadday daris wuxuu yiri dad baa ila soo hadlay laakiin cidla ila hadlin ayaan meeshayda ku fadhiyey inay tahay dembi laysku xiro arrinta ammaankana